السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلاف حوغان أيا سوكرا دحغلay hogaanka maamulka Puntland wuxuu salka ku hayaa sidoo kale waxa halkan idinku hayaa oo aan idin soo gudbinayaa Imaaraadka Carabta oo ka shakiyay sanadii ciidan iyo sidoo kale dhaqaalihii uu gacanta u geliyay hogaanka Puntland isla markaana qarka u saaran in uu kala wareego mar kale. muuqaalka si gudbi la garay share garay oo la sii wadaag asxaabtada soo dhawaada. sida ay inoo xaqiijiyeen ilo loo qaateen ah oo ku dhow xafiiska hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa ninka lagu magacaabo Lugator ayaa tilmaamaya in khilaaf xoogan oo salka ku haya musuqmaasuq wax isdabamarin lagu sameeyay sanad ciidan iyo dhaqaale laga soo qaaday Imaaraadka Carabta. waxaa la tilmaamayaa in dhaqaalahaasi ay lunsadeen labada xafiis ay kala ah xafiiska hogaamiyaha iyo ku xigeenkiisa taas oo sababtay in banaanka uu soo baxo kadibna labadooda isku qabtaan arinta ku saabsan dhaqaalaha iyo sanadda ciidan ee la lunsaday. waxaa gacanta loo geliyay rag dhalinyaro ah oo aan khibrad u lahayn maareynta iyo hagaajinta agabkaasi waxaana qaar ka mid ah la tilmaamay in lagu arkayba iyaga oo lagu iibinayo suuqyada waaweyn ee hubka ee deegaanada maamulka Puntland. tan markii ay soo baxday waxay gaartay Imaaraadka Carabta waxaana isla xisaabtan lala galay Saciid Dani iyo ku xigeenkiisa taas oo keentay in labaduba ay madaxa isu galaan isla markaana waxay iska weydiiyaan arintan lunsashada dhaqaalaha oo ciidanka lagu talagalay gaar ahaan lacagaha oo aan sidii loogu talagalay loo gaarsiinin daaweyn la iibsaday oo suuqa la geeyay iyo hubka qaar oo lagu arkay suuqyada waaweyn iyaga oo la iibinayo Imaaraadkuna ay aad uga caroodeen. Imaaraadka ayaa dalbaday in si degdeg ah loo soo cadeeyo sababta rasmiga ah arintaasi ka dambaysa iyo sidoo kale in la soo gudbiyo liiska dhaqaalaha la bixiyay sababta suuqyada loogu iibiyo hubka iyo waxa loo gaarsiin waayay ciidamada. Imaaraadka wuxuu ku hanjabay in uu hubka iyo sidoo kale taageerada uu kala laaban doono sidoo kalena diyaaradihii erga ahaan loogu dhiibay maamulka Puntland uu dib kaga celin doono saacadaha ama maalmaha soo socda haddii uusan jawaab rasmi ah ka bixin. tani waxay keentay in durbadiiba madaxtooyadu ay kacdo isla xisaabtan la galo dhinaca kale uu ku riixo hogaamiyaha Puntland uu ku riixo ku xigeenkiisana uu ku riixo Saciid Cabdullaahi Dani. labadaba hadda madaxa ay isugu jiraan waxayna ka baqayaan talaabada Imaaraadka hanjabaadda iyo sidoo kale fadeexadii ka dhalatay hubkan lagu arkay suuqyada waaweyn ee deegaanada Puntland gaar ahaan Garowe. haddaba hogaanka Puntland ayaa ku faanayay in uu hantiyay dhaqaale saaxiib u leeyahay Imaaraadka hub gacanta loo geliyay diyaaradana loo keenay oo erga ahaan ay u haystaan balse dib loogu celinayo haddii aysan cadeenin sababta fadeexadan keentay iyo sanadahan ciidan iyo dariiskan suuqyada la geeyay iyo baahida ku kaliftay hogaanka Puntland. haddaba xogtaas ayaa soo dhacday oo aan rabay inaan idin la wadaago idinkuna sii gudbiya la gareeya share gareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina. waxaan isha ku haynaa arrimaha Imaaraadka iyo khilaafka maamulka Puntland xilligan ka dhex abuurmay isku qabsiga u dhaxeeya labada hogaan iyo sidoo kale Imaaraadka hanjabaadiisa ma ka dhabeyn doona oo ah in uu diyaaradihiisa ceshan doono hogaanka Puntland la xisaabtami doono dhaqaalihii uu ka rabo isla markaana laga rabo in ay soo cadeeyaan arrimahan fadeexada ah waxa ay ku dhacday. adiga ka ahaan sidee u aragtaa adiga oo qabyaaladu aysan ku madax mareenin oo aadan difaacaynin warkan xaqiiqadiisa banaanka soo baxay ee hadda magaalada oo dhan aad u qabsaday madaxtooyadana laga og yahay hogaanka Puntland Saciid Dani iyo Lugatorna ay og yihiin. mar kale muuqaalka si gudbi.